أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى maanta mawduuceena waxaynu kaga hadli doonaa in yaro kooban oo kamid ah taariikhdii facaweyneed ee uu lahaa asxaabigii la oran jiray Dalxa bin Cubaydillah. Dalxa radiyallahu anhu iyo waxa uu kamid ahaa asxaabtii jannada loogu bishaariyay iyaga oo nool, waxaana uu kamid ahaa asxaabtii tirada yareed ee aayado quraanka kariimka kamid ah ay daraadooda soo degaan. waxaana ammaan ugu filan Dalxa radiyallahu anhu iyo in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka yiraahday isaga: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجلين فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. waxaa kaloo nabi maxamed u bixiyay sallallahu alayhi wasallam maalintii Uxud la joogay طلحة الخير. غزوة العشيرana waxa uu bixiyay طلحة الفياض. maalintii la joogay Khaybarna nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu bixiyay طلحة الجود. asxaabiga waxaa soo magacaanay nabi maxamed u bixiya kasbaday kaliya ta kaba mid ahayn 10kii jannada loogu bishaaray ee xataa waxa uu kamid ahaa 8 qof ee ugu soo horeeyay islaamka, waxaana uu kamid ahaa 5tii ku islaamay gacanta Abu Bakr radiyallahu anhu. Dalxa radiyallahu anhu waxa uu kamid ahaa madaxdii Quraysh islaamka ka hor, waxaana uu ahaa nin taajir ah oo hanti badan haysta, waxaana la oran jiray asad Quraysh awoodiisa darteed. aayadihii Dalxa bin Cubaydillah ku soo degay waxaa kamid ahaa aayadahan uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa ku leeyahay: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. haddaba Dalxa bin Cubaydillah magaciisa oo dhammaystiran waxa uu ahaa Abu Muhammad Dalxa bin Cubaydillah bin Cuthmaan bin Camr bin Kacab bin Sacad bin Taym bin Murrah bin Kacab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurayshi al-Taymi. Dalxa bin Cubaydillah iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa ay xagga abtirsiinta ku kulmaan Murrah bin Kacab. Abu Bakr iyo Dalxa radiyallahu anhuma waxa ay ku kulmaan Taym bin Murrah. sidii uu kusoo islaamay Dalxa bin Cubaydillah waxay ahayd isaga oo safar ganacsi ugu maqan Basra ayaa markii uu suuqa soo gaaray waxa uu maqlay nin raahiba oo Yahuudiya oo ku jira teendhaya isla markaana ugu bushaareynaya dadka nabi ka soo baxay Makka. markaa waxa uu weydiiyay Dalxa miyuu soo baxay Axmedna waxa weeye magac kamid ah magacaanta nabiga sallallahu alayhi wasallam. Dalxana si dhaqso ah buu uga soo noqday safarkii balse uu ogaado inuu run sheegayo ninka raahibka ahi. isla markuu magaalada Makka soo gaarayba waxa uu maqlay warkii magaalada haystay oo ahaa nabinimada nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. intaa kadibna waxa uu tagay Dalxa radiyallahu anhu iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga oo la socda Abu Bakr Siddiq, waxaana uu uga waramay qisadii raahibka xaggaasaanu ku islaamay, waxaana uu sidaa kaga mid noqday dadkii ugu horeeyay diinta islaamka soo gala. dhibaatooyinka ay gaaladu u geysanaysay dadka muslimiinta ah waqtigii hijrada ka horna uu la qabay Dalxa oo isagana dhibaatooyinka way soo gaarsiiyeen. waxa uu nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay ugu bishaareeyay Dalxa jannada dhowr jeer oo kala duwan, waxaana kamid ahayd markii uu yiraahday nabigu sallallahu alayhi wasallam: Dalxa wa Zubayr jaaraya fil janna. Dalxa iyo Zubayr waxa weeyaan jaarkayga jannada oo xagga jannada ayaanu jaar ka noqonaynaa. mar labaadna nabigu waxa uu yiraahday: man araada an yandura ila shahiidin yamshi ala rijlayhi falyanzur ila Dalxa bin Cubaydillah. qofkii doonaya inuu arko nin shahiid ah oo ku socda laba lugood ha eego Dalxa bin Cubaydillah. qaswadii Uxud waxa uu arkay Dalxa bin Cubaydillah nabiga oo uu dhiigu dhabankiisa ka socdo. markuu sidaa u arkayba nabiga xaggiisa u dhaqaaqay si uu ugu nusreeyo nabiga ugu gargaaro. markaasuu nabiga hortiisii galay isagoo gaalada bidix iyo midigba kala dagaalamayo, kolna bidixda kaga dhufanaya gaalada seefka, kolna midigta kaga dhufanaya, oo nabiga aad buu caawiyay dagaalka. waxaana uu kasoo qaaday godkii uu ku dhacay ee uu ku siibtay nabigu sallallahu alayhi wasallam markii dagaalka lagu jiray. mar uu Abu Bakr Siddiq ka hadlayay qaswatu Uxud wuxuu ku tilmaamay inay maalintaas ahayd maalintii Dalxa, sababtoo ahna waxa uu yiraahday waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay nabiga u soo galay, waxaanu igu yiraahday nabigu aniga iyo Abu Cubayda bin Jarraax duunakum akhaakum, isagoo noo tilmaamaya Dalxa. xaggii Dalxaanu sidaa u eegnay buu yidhi waxaaba ku yaala 72 dhaawac ah oo seef iyo waran iyo leeb lagu soo tuuray bay isugu jira, farihiisa qaarna way go'naayeen.
fadaaishii uu dalxa bin cubaydillaah lahaa waxaa ka mid ahayd waxa uu ku soo wariyey abuu nucaym sanadkiisa inay ummulmu'miniin caaisha radiallahu canha ay tidhaahday waxa uu ahaa abuubakr sidiiq radiallahu canhu iyo haddii uu xuso maalinta uxud ama yowma uxud mid yidhaahda maalintaas waxay ahayd maalintii dalxa. taasina waa ammaan iyo shahaado uu ka helay sidiiqu haadihi lumma oo ah abuubakr sidiiq radiallahu canhuye. waxa kale oo ka mida fadaaisha dalxa bin cubaydillaahi radiallahu canhuye waxa uu ka soo wariyey bukhaari qays binu abilxaasim inuu yidhaahday waxaan arkay gacantii dalxa bin cubaydillaah oo uu ku dhacay baalig intii uu ku ilaalinayay nebiga sala allahu caleyhi wasalam maalintii uxud. taasina waxa ay caddaynaysaa iimaankiisu xagga uu gaadhsiisnaa iyo isaga oo dagaalkaa ku jiro gacanna ka dagaalamaya inuu xagga kalena nebiga ka ilaalinayay sala allahu caleyhi wasalam si aanay gaaladu seefta ugu dhufan oo uu gacantiisa uga dhigay isla mar ahaantaana ay gacantiisii dhaqaaqa joojisay oo uu faali ku dhacay. waxa uu noolaa dalxa bin cubaydillaah radiallahu canhu iyo ilaa iyo wakhtigii khilaafadii cali binu abi daalib. haddaba markii uu ka dhex dhashay khilaafka ummadii muslimiinta ee la isku qabsaday labada arrinteeba la horraysiinaya in la caleemo saaro amiirka cusub oo arrimahana la dejiyo iyo in loo qisaaso amiirkii muslimiinta ee cuthmaan binu cafaan isla mar ahaantaana la dilo ciddii isaga dishay. dalxana waxa uu la socday qoladan labaad ee iyagu doonayay in qisaasta la horraysiiyo laakiin haddana arrinku isagoo sidaas ah waxa yimaadey amiirkii mu'miniinta ee cali binu abi daalib radiallahu waxaanu kula taliyey in uu dagaalkan isaga noqdo si aanay isaga soo horjeedsan. dalxana uu qaatay arrinkii oo dagaalkii uu isaga noqday. markaa isagoo sii socda ayaa mid ka mida dadkii fidnawadayaasha ahaa ee doonayay inay dadka muslimiinta islaayaan ayaa kusoo tuuray leeb oo uu ku dhacay waxaana uu ku shahiiday mawqacatuljamal sanadku markuu ahaa 36 hijriyada. dagaalkaas iyo fidnadaas markii ay dhammaatayna cali binu abi daalib radiallahu canhu markii uu soo ururiyey ciddii ka shahiiday dadkii muslimiinta ahaa kuwii isaga xaggiisa ka dagaalamayay iyo kuwii kasoo horjeeday la dagaalamayeyba markii uu aasay dalxa iyo zubayr radiallahu canhuma inta uu dul istaagay qabrigoogii ayuu ku sabootiyey kelmado culculus waxaana uu kusoo gebagabeeyey waxa aan rajaynayaa in aniga iyo dalxa iyo zubayr iyo cuthmaan aanu ka mid noqono kuwii uu ilaahay yidhaahday wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. inta uu labadoodii qabri sidaa u sii jalleecay ayuu yidhaahday waxaan maqlay nebiga oo leh dalxa iyo zubayr waa jaarkayga jannada faradia allaahu canhum ajmaciin. waxaynu intaa yara kooban kusoo koobnay taariikhdii ballaadhnayd ee uu lahaa asxaabigii weynaaye la odhan jiray dalxa bin cubaydillaah radiallahu canhu tan iyo intaynu muuqaal dambe ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.